صلاة من المولى ونور لنا بدا على قبة الخضراء وفيها محمدا ونور لنا بدا على قبة الخضراء وفيها محمدا بنورك أوضحت الهدى لمن اهتدى عليك صلاة الله يا عالم الهدى ونور ذكرgiisa markuu ilaahay koryeelidiisa uu ka hadlahayo warafacnaa laka dikrak nabigii sidaa ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaanu dhalashadiisii weynaynaynaa wax kalena ma aha waa inaan siiradiisa ka sheekayno waa in sida culimmadu ay naga sheekayn doonaan waa inaan maxabadiisa isu dardaaranno waa inaan salligiisa badinno calayhi salaatu wasalaam waana inaan sunnadiisa iyo waddadiisa raacno wixii la awoodi kara in la sadaqayso weey in qur-aan la aqriyo weey in la iswacdiyo weey intaa weeye munaasabadda nabiga calayhi salaatu wasalaam xafladda laga hadlayo ee mawlidka la leeyahay marka waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo hadduu ilaah yidhaahdo anoo soo koobayo nabiga maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam waa waajib ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo la hadlaya dadka qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad tihiin kuwa ilaahay jecel aniga isoo raaca dheh baa lagu yidhi rasuulkii allow ilaahay baa idin jeclaanaya wuuna idiin dembi dhaafayaay nabigu markuu ka hadlaya maxabada calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin haddii adiga naftaada iyo waalidkaaga iyo waladkaaga iyo dadka oo dhanba aad nabi moxamed ka jeclaan weyda calayhi salaatu wasalaam iimaankaaga dib baad ugu laabanaysaa iimaankii saxda ah ee loo baahnaa ma aha sayidinaa cumar ibnu khadaab ayaa mar wuxuu yihi rasuulka allow naftayda ma ogiye inta kaloo dhan adaan kaa jeclahay kolkaasaa wuxuu yidhi maya ilaa xataa naftaadaad iga jeclaato sayidinaa cumar wuxuu yidhi xataa naftayda waan kaa jeclahay rasuulka allow al'aana yaa cumar yuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda ayaa maxabadii la rabay aada la timaaday iimaankaaguna uu kaamil yahay oo uu dhammaystiran yahay waxaa marka walaalayaa loo baahan yahay nafteenna iyo awlaaddeenna iyo ehelkeenna dhammaantood inaanu u dardaaranno aan ku tarbiyayno nabiga maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam halka ay ciyaalkeennu ay jecel yihiin waxyaabo aan munaasib ahayn oo ay sheegsheegahayaan oo ay qadarinhayaan oo ay wakti ku luminhayaan waxaa loo baahan yahay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxabadiisa in qalbigooda la geliyo oo lagu tallaalo oo lagu tarbiyeeyo ayaa loo baahan yahay maadaama iimaanka ay ka mid tahay saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay ka hadlayeen nabiga maxabadiisa calayhi salaatu wasalaam sayidinaa camru bnu alcaas ayaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay wax kasta rasuulka ayaan ka jeclahay buy sayidinaa caliy bnu abi daalib baa la weydiiyey kayfa kaana xubukum lirasuuli illah sala allahu calayhi wasalam haddaad saxaabadii tihiin nabiga jacaylkaad u qabteen sidee buu ahaa markaasaa wuxuu yidhi kaana wallah ilaahay baan ku dhaartay wuxuu ahaa nabigu wuxuu ahaa axabba ilayna min amwaalina wa awlaadina wa aabaa'ina wa ummihaatina wa min almaa'i albaaridi cala adamawi ilaahay baan ku dhaartaye xoolahanaga nabigaa ka jeclayn calayhi salaatu wasalaam awlaaddanadana isagaan ka jeclayn aabbayaalkanna iyo hooyaalkanna waan ka jeclayn xataa biyaha qabow oo qofka aadka u ooman sida uu jecel yahay si ka daran baa nabiga u jeclayn calayhi salaatu wasalaam يا من رضى لله يا نبي الله ومغضبا لله يا رسول الله فالجود كل فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله أدركنا يا نبي الله وارض عنا وآونا رسول الله وكلنا مجيبا يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله
والخير كل فيك يا مليون حبيب من الله الصلاة يا نبي الله عليك في الأوقات يا رسول الله والآل والأصحاب يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك ما يا ضيق حبيب الله يدعوك يا نبي الله ويرتجي لقاك يا رسول الله ويستفيض منك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك لبيك يا حبيب وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك يا حبيب الله لبيك وسعديك يا نبي الله لبيك وسعديك يا رسول الله والخير كل فيك والخير يا كل حبيب الله. فيك يا حبيب الله والخير كل فيك والخير كل فيك يا حبيب الله والخير كل فيك يا حبيب الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى ال محمد وشرف وكرم وعظم ومجد ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. nabiga hortiisa waxaa ku ammaanaya xasaan binu haabit saxaabigii weynaa nabigii ilaahayna gambar kursi buu u dhigayaa ducadana nabigu wuxuu leeyahay allaahuma ayidhu biruuxi اlqudus ilaahayow meliku jibriil ku xooji buu leeyahay nabigu calayhi asalaatu wasalaam kursigii buu uga degey nabigu kursigiisii buu fuuray oo ku fadhiistay markaasuu leeyahay allahuma ayidhu biruuxi اlqudus kelimo kelimo markuu ku dhawaaqa ayuu nabigu saah leeyahay markaasuu maxabaysan yahay xabiibkeena calayhi asalaatu wasalaam waxaa qoraya ninkii kutubta ka warhayo saxiixu muslimkaa qoraya ka fiirso in yar baan ka soo qaadanaynaa bal dhegaysta masiidooyinka hadda aan qaadayneed mooyeysaan soomaalida keliya inay leeyihiin iyo kuwii saxaabadii nabiga say isugu egyihiin hajawta muxamadan baran xaniifan rasuula allahi shiimatuhu lwafaaw hajawta muxamadan faajabtu canhu وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كرفي كتاي وقسعد در صحابة وساسلها مركئير موضوعي يعني صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وحود شيء حريك سنة كالليلة هي ليلة عام الفيل بودش النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل احتفال كي أبوه الرئي النبي الله سبعي دعي سنة كاس وحاكسو دولي قالوا أبراهيم من أورنجري وحبشيها oo gaal ahaaba wuxuu kaga duulay yaman buu kaga duulay oo yidhi meesha la aadahayo ee kaniisadana ahayn yaa soo burburinayaa markaasuu nabigeena awowii geeriisii ayuu xareeyey waa mawduuc aad u dheero waa loo soo koobayaa markaasoo waxaa la yidhi geela maxaad ka sheegi waxaaban u socdaa kacbadii baa soo burburinayaa taa ilaahay jecel baalaho kaa difaacnaya ani geeriga ii dhaaf budha nabigeena calayhi asalaatu wasalaam sanadkii u dhashay barakadiisa sidaa kutubta qorayso barakadiisa ayaa maroodigii raraa ee kacbada lagu soo dubi rabay ayaa ilaahay ku xabisay horta nabigeena calayhi asalaatu wasalaam habeenkii uu dhashay habeenkii dhalashadiisii waxaa ooyey waxaa farxay wax allaale wixii qalbigiisa iimaan uu ku jiray baa farxay wixii uu ku dhici doonay ee aan kolkaa iimaaniisu ku jirin laakiin uu ku dhici doonay xitaa uu farxay nabigeena calayhi asalaatu wasalaam sida ay kutubta barkood caddaynayaan sida imaamulkhadaabi oo kale habeenkaa waxaa ooyey dhawaaq werigii uusa ooyey waxaa ooyey ibliis jannada maalinkii laga soo bixiyey sidii uu u ooyey
si ka daran ayuu wuxuu weeye maalinka u faafaantooda oo ana khayrun minhu iyo ninka aad jannada iiga soo saartay laaweenahu iyo xaggaa kaga iman iyo xaggaa kaga iman buu yidhi laakiin nabigeenu maalinku u dhashay calayhi asalaatu wassalaam oohin aad u fara badan oo qaylo ah oo ay maqleen bini aadamka waxaan ka ahayn oo dhan ayuu ooyey baa layidhi waxaa la yidhi maxaa kaa oohiyey ibliisow caawa maxaa kaa oohiyey waa kii weynaa indhaxbillaha waxa ooyaya wuxuu yidhi waxaa dhashay caawa khayru khalqillaah khalqiga ilaahay kii ugu khayr badnaa ayaa xalay dhashay buu yidhi anigu marka kaas dhalashadiisa waxay igu tahay buu nuxsi kuwa ku farxaya ka mid mihi buu yidhi marka waxaa tusaale ahaan maalinkaas yaa ka naxay oo sharaystay nabiyullaahi maxamed dhalashadiisa yaa sharaystay oo ka ooyay oo dhibsaday waa ibliis yaa ku farxay waa mu'miniinta malaa'igtii ilaahay oo dhan baa soo xaadirtay malaa'igta ayaa gurigii uu nabigu ku dhalanhaya calayhi asalaatu wasalaam yaa sida dhagaxa iyo ciiddu ay sida dhulka ugu daadsan yihiin oo kale ayay garbaha isu qabteen ilaa fowqa 7 samaawaat ayay xidheen iyaga oo nuurkooda iyo iftiinka ka baxaya xitaa daruuraha xidigaha ayaa la soo dhoweeyey oo lagu iftiimiyey dhulkii oo dhan lagu iftiimiyey wax allaala wixii eenu khayr ahaayoo dhan baa farxay ibliisna maalinkaasuu ooyey marka waxaad ogaataan ninka nabiga ammaana ducuu qabaayoo nabigaa u duceeyey oo wuxuu yidhi allaahuma ayidhum biruuxi اlqudus uujibhum wa jibriilu macaka saasuu ku yidhi nin allaala marka ninka nabiga ammaana waa duco qaba oo ducadii nabigu qabaa nin allaala ninkii maalinka mawliidka sharaysta ee maalinka mawliidka naxana waa inkaar qabo habaarkii nabigu qabaa وغدا كل بيت نار وفيه كربة من خمودها وبلاء من يحب الحبيب فهو حبيب وعدة الحبيب هم أعداء من يحب الحبيب فهو حبيب وعدة الحبيب هم أعداء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل محمد ربي يسر ولا تعسر عونك يا ربي يا إلهي يا الله ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل وعلى الآل من هم الكرماء اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه نبي النور يهي بالله شيء قد جاءكم من الله إلى حق سبحانه كريم نور بينك بالله هو النبي ويه وهذا وقع صومت غناي وكفصل الجارين كبت غناي مشاسي هو النبي بيقول نور كاسي والنبي هذا كتاب هذه لنا وكتاب بيقول كتاب قولنا الله شيء marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam nuur markuu dhashay mugdigii baa laga baxay marka islaamnimadii oo nuur ah ayuu nabiga noo keenay waa aabbihii islaamka haweenkiisana ummahatul mu'miniin weeyo waa hooyayaalkeen oo hadda ninkii gabadha dhalay oo joogo halka taagan buu hortiisa ku nikaxinayaa oo asaga yuu walaayanayaa oo mataqaanay awooddaas buu ilaahay siiyey marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ku ilaahay leeyahay محوها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبيك عليه الصلاة والسلام إلهي وحوليه النبي أولى أساء وحسن أوليسا بالمؤمنين ومؤمنين من أنفسهم نفط وضع أيضا نفط كل حجرتي نبيك أو قرابيسان أو آنيسان أو إهلسان بعد إليه أو مصلحة وضعي متقناي أو غرهم marka ninkii naftaada kaaga raba marka nabiga hadduu ahaaday sala allahu calayhi wasalam idaa kaana hadduu ahaaday weeyaan nabiga calayhi salatu wasalaam kii naftaada ayakaaga owla hadduu ahaaday fa kayfa laa yanbaqii an yakuuna inuu ahaado shay kasta oo inaad isaga ka jeclaato oo shay kasta oo dalashadiisa aada qiimayso
soo xaq maaha markaa iyada waa xaq weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas markaa falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuuna markeeda leeyahay waa kii hadda oo mawlidka nabiga iyo cibaadada oo dhan waa faraxaas nabiga faraxa weeyaan mawlidka nabiga calayhi salatu wasalaam ixtifaalka la samaynayo waa faraxa nabiga calayhi salatu wasalaam lagu farxayo اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا ومما يكون يا رسول الله هل لي من نجاة يوم لا ينفع مال والبنون اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا يا رسول الله هل لي من منزل في مقعد صدق مع العليين اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا يا رسول الله هل لي من مناج أستمع منك ومن الرحمن اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا يا رسول الله هل لي من يقين أهزم أحزاب نفسي والشيطان اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا ومما يكون اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا عدد مكانا ومما يكون عدد مكانا عدد مكانا ومما يكون عدد مكانا ومما يكون اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم نبي جعل النار ما أركه نبي جعل النار ما أركه إن بقى وحام مغشر مولدكو وشيء حرام مولدكو وشيء كريستانكو أي سميان مولدكو وشيء أي سميان يهود وحاس سبحان الله هذا الكاس قفرت إسلام أهل التوحيد هرتكم الله هذا الكاس وحاكو هذا يهود يوحي العمله waxaan idiin soo gagaabinayaa culimada meeshan ku qoran ee mawliidka ka wada hadleen shaksi wixii oga hadleen haddaan dhahno ma ka gaadhno waxaan idinku soo gaabinayaa culimada magacooda idiin tirinaya bal raggaa miisaanka saara soodad islaam ma tabin ma nihin soodad culimaa inugu jiraan awaanta iyo wixii la mida oo fikirka ciwajka ilaahay ku ridana hala gaadhsiiyo social mediana waxaa leedahay khayr allah yasiiye shaqo fiican baad qabataan waa idinku waaninayaa xafladda waa mawlid siiqada yaa la hadlayna dhulka tabinaysaan xafladda waa mawlid ya saaxiibaday ragga waa saaxiibaday moogta social media xafladdu waa mawlid magac kale ku sheeginaa dhow xafladda ragga ka hadlay tilmaamay ee yidhaahdeen aleelahay waa xaflad maxaan ku dhaha thawaab iyo ajir laga helayo yaa waaye waa tirinaya baa raggan dhegaysta alxaafid ibnu rajab xambali haye ninka ma la garanayaa culimada way garanayaan kow alxaafid sheekhu lqiraa'a wa imaamahu shamsudiin ibnu jazari waa xaafid qustulaani ninkaad garanaysaan weeye ninkaas waa sheekhu alxaafid asakaawi bal raggaa tirsada war bal raggaa meel ku qorta kutubtoodaa laydin dirayaaye kutubtooda haddii mawlidka laga waayo mawlidka kan ku xig waan joojinaynaa waxaa le beenaale nin maqan iyo nin moodan buu mara gashadaa kutubtooda maktabka ugu weyn ee magaalada alhidaaya way taallaa laba qolada marka magaalada jooga masjidkan ugu sokeeya jooga laba ciladood un baa jirta in ay ogsoon yihiin oo dan leeyihin oo dantaas haddii baasha laga baxo dantaa ay meesha ka baxayso oon diin loo jeedin inay juhala yihiin oy kutubta iska soo rarteen sidii buwaagta u warka haynin waa ragga kutubtan iskale kutubtooda waxay ogayiin alhidaaya waa sheekha lixaad wuxuu le alxaafid ibnu xajar casqalaani waa saaxibu fatxu lbaari cala fatxu lbaari sharxu cala albukhaari kitaabkaa maqasheen laa sharxa bacda alfatxi layi adduunkan kitaab bukhaari lagu sharxo oo ka dambeeya ma yaallo ninka iska lahaa wey ثانيا وأنك حافظة الاسكيلة في الحديث وعلماء حافظة اللي يدعو رك بابا حفاظ رك بابا حفاظ لكن ما يعادين تلا شيء أو حلا يدري كريم نك إسكالوا هذا هذا ندير ابنه
ibnu xajar warkiisa miyaan qaadanayna mise dac abaashi ii sheeg nijaax iyo salaam ilmo ka yimaaday oo weligood xataa aan arbiciinka afartanka iyo labada xadiiday ku qoran haddii la balkorka lafdan wa macnan iyo sanadka intaa akri aan aqoonin ha ma intaasaan jeedina maya ninkaa waa ogolya mawlidka kow sheekhiisa oo ah alxaafid alkabiir الشهير ابن سيد الدين عبد الرحيم ابن حسين العراقي وشيخيس حافظ شيخيس هو وارجع كهلا كتبته كلي وادرالين كتا نيك الله الرحمن لحال وحاوية الحافظ إسماعيل ابن كثير صاحب تفسير القرآن ها والاسكسو قال سمار كيسان تفسير القرآن كما قال لك يكون سيدنا يان ابن كثير كتاب قرآن مولوز تقول لما قرميا أرنتاس ودية مركب وطا شاخة الضباط كل سوق الجبين وحاوية الحافظ ابن رجب الحنبلي ها الحافظ عبد الرحمن ابن السيودي وشاخة الضباط ليك أوضن بيا وحاوية الحافظ ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف ابن شام سديد دان رجع كلو كاريبل كتب طوبة أي كقرن مولد كأدون كيالان وهذا وقتان بتكلم مولد كديد اللهم بديهين إن أي ديديهين دينتا أي غيرين أو رسالة أي وبان أي رسالة دينتا كخارج أي تاي إن أي دن إلى شان أيام أو هدي حق الله شيء الباب سوحر ما يغفر معه الله ما من باجت بس دحنا بيكتب كل سيدو شاخة مشاخ يقول من شاخة من الشاخة وابدلان ضرب دعاء أبواب الجهنم ومع ذلك التوحيد شيئا يا ما كان ماشي وكجران وهذا وقت مركا وركا يعني كل يوم مشاخ يقول ماشي جوان عالمين بجوان أشراف بجوكتا محاكمها والدين تينون بجواني إلهي سبحانه وتعالى شيخ محمد نور دايف وشيخ هل مليون أوقف أو مالكو كم مولدي بنجالدش خدك هدار استعماشان فريا 16 مليون بحال قرار سكوين مات هالك وانجا ديارة كل عالم قرين انت الوبو فيه كل عالم قرين كم ببنى إلى كسا أكر صعود وبيشرو رجيني ما إله إذا كل شيء يحيي 8 مليون أو مسلمة بوحي سكوين هذا الشيء بعدها أن دين هاي علماء ما نبيع dadku tawxiid ma lamaya dadku kulligood ma xays kaga marxaati ka macsiisanayaan adeer intaas aan ku soo gabagabeynaya waxaad ogaataan qofka hadduu indhala yahay indhaha ladii shay ku waxaan u malaynina wax lagu arko waa halkan hadduu ilaahay maxaan ku dhahaa ay mugdi ka dhigo wax aad fahmin ma jiro idan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno waxaan ilaahay weydiisanaynaa wuxuu yidhi sheekhuna sheekh abubakar xasan maalin dictoorka wuxuu yidhi mawliidka ninka diidan horta wuxuu yidhi jawaabtiisu way yar tahay buu laakiin waxaan idin sheegay waa la wada mawlidaabi qolo waxay ku mawlidaan buu waa shirki iyo waa kiristaan iyo waa yuhuud oo bisha mawlid markay bilaabato way bilaabaan buu qolana waxay ku mawlidaan wanaag iyo khayr ilaahayna waa ka fawaabin qolo marka naar bay shaqaysanaysaa qolana janna shaqaysanayaan intaasaad ogaataan wax kale adduunka ma yaallo ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsanno kelimada waa ku dheeraaday waqtiga gaaban insha allah isbikaha ayaa farta igu soo fiiqaya marka ilahay joojiyo harka ilaahay ka baqno subxaanahu watacaala bishaaraysta waxaa bishaaro ah in halkan aad u joogtaan maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dabaaldegiisii nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad aragtaan beeraha jannada ka mid ah haddaad aragtaan daaqa oo maxay tahay waa meelaha dikriga iyo xalaqada iyo wanaagga lagu hayo marka waxaanu joognaa maanta beeraha jannada ka mid ah marka xoogahaaga kuleelka ah iyo huurhuurka iyo cariiriga iyo daaldaalkaasi waxaad kaga samirtaan ajarka weyn oo helaysaan iyo fadliga weyn darteed insha allahu tacaala intaa kadib mawluudkani markaan daraaseeyey wuu ka duwan yahay mawluudyadii hore waxyaalo badan research aan sameeyey iyo baarid aan sameeyey waxyaalo badan buu uga duwan yahay marka hore horta reer Gaarisa
waxaa weeyaan waxaa u bishay oo u dhalatay waxaa farxad weyn waa sanadkii shanaad oo lagu soo bannaan baxo bannaankani weyn ka hor waxaa dhici jirtay in lagu dhigo mawlacyada ama masaajidada arrintaas oo horwadeeno ka ahaayeen aalabeedkeena sharafta leh ee halkan nala fadhiya maanta iyo culimaudiinkeena waaweyn iyo ragga ahlu duruqa hogaanka u leh halkan fadhiya ayagaasa hogaan u ala waxaynu ku dadaaleen in ay bannaanka u soo saaraan dabaaldega nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa ayna dhacday waxaana halkaa ku jabay cadowgii wahaabiyada la oran jiray iyo wixii la halmaalo waxaa guulaystay dadkii ahlu maxabadaha ahlu islaamka ahna waa ay guulaysteen intaa kadib waxyaalaha uga duwan yahay oon daraasay waxaa ka mid ah mawluudkani dabaaldegiisi kii hore uu ka wen yahay waxaa kale oo toobad keenay rag wahaabiyada ka mid ah oo dhalinyaro ah oo yuutubaro ah oo miidiyaha nagu dhibi jiray oo aan qoorta usa galnay oo aan kala nasan weynay ayaa intay soo galeen yuutubaradoodii iyo miidiyihii soo galeen bay waxay yidhaahdeen waana toobad keenay nagana raalihaada waxaana bixinaynaa raaligelin magaciisa waxba sheegi mahayo nin caama ayuu ahaa kenyuu nala joogaa si toosa intuu usoo fadhiistay wuxuu yidhi waan toobad keenay wuxuu yidhi weliba intaas oo xaflado oo mawlidka lagaga hadlayo ayaan caayi jiray buu yidhi caayadii ayada aan caayi jiray waan ka toobad keenay dadka mawluudka dhigana waxaan ka codsanayaa buu yidhi inay cafiyaan wuu ku soo celceliyey waa ku cafinay mar hadda soo noqotay kuwo badan oo hadda ku dhega adeegay baa jira horta nimankani ma badno anigu waxaan ka imid dal la yidhaahdo zambia dalkaasi yara zambia waa dal waxay ku faanaan christian nation waa dalkii gaalada bimacnaa waxay ku faanayaan gaalnimo waa dalka keliya ku faanayo gaalnimada halka ayada ah waan ka dhignay waan laga dhigaya mawluudkuuna ka socdaa waxaana waardeynaya oo hor iyo gadaal laga socda waa gaalo ku faanayo inay christian nation yihiin dalkii gaalnimada wadamada kale waxaa laga yaabaa inay gaal iska yihiin laakiin ay dastuurkooda ugu jirin halkaas laga soo bilaabo ilaa halkan dabaaldega nabiga calayhi salaatu wasalaam baa socday daraasaadka aan samey waxaa kaloo ka mid ah culamo waaweyn oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa sanadkani ka soo qeyb galay dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo wahaabiyada ay ku faani jireen isku dhadhajin jireen dabaaldegii ka dhacaya inaad daawanayseen baan u malaynayaa jigjiga magaalo madaxda dowladeegaanka waxaa ka soo qeyb galay qaarigii weynaa sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi wahaabiyaduna isku dhadhajin jireen oo iskuna nabi jireen haddee mar haddii uu qaarigii isku nabi jireen uu ka soo tegey malaha waxaan u malaynaya way soo daba raaci doonaan inta soo hartayna weliba waxaa weeye waxbay ka sheegeen mar alla markuu ka soo qeyb galay xafladahay ugu wacan jireen nairobi meel walbay ka dejin diyaaradahay ku wadi jireen qaarigii markuu yimid oo ka soo qeyb galay dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ku bilaabeen inay dhaleecayaan durbadiba ayagiiba dhexdooda waxaa ka dhalatay inay dagaalamaan warwa ninkii waa qaarigii joojiya waa shaabsi cali suufi warukaadiya ayagii baa isku maqan hadda taasi waa mid waxaa kaloo idin kale idinku bishaaraynayaa maanta waxaanu sheegaynaa hawshani waa hawl culimmadeena ay soo wadeen laakiin shaksiyaadkan uu soo biirayo mar walba waa inaan daraasaynaa nin kale oo isagana caam ah oo aad ka aragteen tiifiyada oo la yidhaahdo sheekh usuuli waad maqasheen baan umalaynaya aad masalooyinka aad weydiinayseen oo masalooyinka aada loo weydiiyo asagana waad aragteen muxaadarada uu ka dhigay dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo siduu u waajiibay iyo siduu uga hadlay weliba uu yihi dadka ganacsatada ah nin ahlu sunno oo suufi ah iyo nin wahaabi ah ayaa waxay shirki ku yihiin ganacsiga sida ay u wadaan shirkada ugu yihiin ba waxaa lasoo gaaraya mawliidkii markaasay dagaalamayaan bu yidhi war ma maxabada nabiga alay slam bay ku dagaalamayaan waa yaabe adduunyadiiba shirkay ku ahayeen way wada socdeene wax la yaab lay noqotay sidaasuu u daraaseeyey arrintaas waxay noqotay arrin kale oo aan daraaseynay oo culummada dhalinyarada ahlu sunna waljamaaca ragga qoraaga ah ay diiwaankooda geliyeen ay qoreen tujtahidi tushika katika dini ya Allah, tuangalie ile hadithi ambayo tunaweza kuongea. Hii hadithi nyingi kuna udanganyifu ndani. Hadithi tafsiri yake iko hivi, ametoka kwa kisa hii, anabadilisha wa inadanganywa watu, anapelekwa hivyo. Mfano hadithi ya kusema mwanamke atavunja, mke wangu anivunji udhu, au
nitafanya katika yama ya ngamia, mimi nitatawaza. Hakuna kitu ya kutawaza, kwa sababu hii hadithi mbili yote imeandikwa katika Sahih Muslim. Hizo hadithi iko pamoja, imeandikwa katika Sahih Muslim. Watu walikula yama ya ngamia. Hadithi mtu alitoka hewa alisikika watu khairu khalqillahi, hawezi kusema kwa heshima yake, kwa taadhima yake, wewe una kadha kadha, hakusema. Akimwambia kila aliyekula yama ya ngamia atawaze kumheshimu huyu mtu, kuficha aibu yake. Man satara akhihi almuslim aibahu fi dunya satara Allahu uyubahu yawm alqiyama. Yoyote atakayeficha aibu ya ndugu yake duniani, akhira naye aibu zake Mungu ataficha. Kutokana na hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia tawazeni. Baadaye Mtume alimuita ashabu zake akamwambia, la yanqudhu alwudu'a mimma basadhu an-nar, haiharibu katika udhu kitu chochote aliyetengenezwa na moto. Yama ya ngamia alipikwa na nini? Si ndio alichemshwa na moto? Kitu yoyote atakayetengenezwa kwa moto haiwezi kuharibu katika udhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema leo kuna watu, mamilioni ya watu, akikula yama ya ngamia anatawaza. Hii hadithi amenasakhiwa, kuna nasikh na mansukh. Kwa hiyo vitu kama hivi ndio iko nyingi sana, kuna udanganyifu nyingi sana inafanyika katika Uislamu, na huyo anayosema maulidi ni kama hiyo, ni udanganyifu tu. Ulikuwa unasikia maulama aliandika maulidi wenye ilmu, ahlul ilmi warasikhuna fil ilmi, waliandika maulidi sababu gani kama sio halali? Umeandika Ibn Taymiyyah babu yao ina miaka 700 na alikubali, alisema hii ni halali. Bona babu yao anakubali, wao wanakataa. Ameandikwa wapi? Kwa hiyo ndugu zanguni, naomba vijana wa Kiislamu na matajiri wa Kiislamu wasimamia katika maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu atakayetaka masala, ahlu turuq masala wanayo, waje watuulize. Kama tunakosa tutaelekeza, kama amedanganywa tutaelekeza wallahi. Kwa hiyo ndugu zanguni, nafupisha hii maneno. Hii maneno inatakiwa iwe na ufatilizi wa kufatiliwa, lakini alhamdulillah leo tumekutana na tumeongea mambo mengi. Kwa hiyo insha Allah Mungu atujalie khairi. Hatuna mandhari, tuna shida, mvua hakuna. Mungu atujalie khairi, Mungu atutetee wakati wa kaburi na wakati wa kiyama. nabiyullaahi Muxamed ninkii xurmeeyey, ninkii soo dhoweeyey, ninkii ammaanay, hadduu la zamantamay, hadduu zamankan joogaba, ninkaasi ilaahay agtiisa maqaam buu ku leeyahay. xabiibka jacaylkiisa aynu jecel lahay maqaam baan ku gaadhaynaa. nin waliba markuu qabriga galuu ogaanayaa wixii uu adduunka ku haya ee dhafoorka xumaa iyo wixii wanaagsanaaye anfacaya, qabriga ku anfacaya, markaasuu ogaanayaa. nabiyullaahi Muxamed wuxuu ahaa addoon ilaahay noo soo diray oo aanu ku sharafownay, oon ummadihii hore kaga hormarray. ilaahay baa lagu tilmaamay, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. addoommaha ilaahay ee uu soo saaray, addoon kuwa ugu khayrka badan, nabiyullaahi Muxamed jacaylkiisii baa khayrkaa ku gaadhnay. ummaddiisii oo noqonnay baa khayrkaa ku gaadhnay. inaan raacnay oo rumaynay baa khayrkaa ku gaadhnay. inaan jecel lahay oon ku salliyayno oonu isugu nimid daraaddi baanu maqaamkaa ku gaadhnay. waxaad yeeshaan wakhtigaa kulul dadka muslimiinta ow aanu hiilinno xabiibka, laaflagaalaynayo aanu hiilinno ilaahay diintiisa ee uu soo dejiyey. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. maanta ixtifaalkeennan waa shacaa'irtii ugu qiimo badnayd, waxaana ku sifaysannahay insha allahu tacaala allah naga yeelo kuwa taqwal quluubka hela. ilaahay idankiis walaalayaal, waxaa nagu soo noqnoqotay abaarna daashatay, haddaynu nahay Kenya iyo haddii ay gobolkan geeska Afrika tahay, labadaba abaaro isxigxiga oo fara badan
yaa dhacay abaarahaasna waa waxaan annagu keensannay barwaaqo oo fara badan baa jirtay oo ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey shukrigeedii waa la waayey maanta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan ku weyneynaynaa oo ilaahayna ugu shukrinaynaa ixtifaalkeenna ixtifaalkaas ilaahay waxaan ku baryaynaa iyo kulankeennaas in dalkeennan uu abaaraha ka bixiyo roob deg deg ah oo caajil ah oo deg deg ah oo hayra caajil ah oo hayra aajil ah hayra aajil ah oo annaga dibdhicin oo noo soo hormara ilaahay inuu ina siiyo ilaahay idankii aamiin dhaha ilaahay idankiis fii hada alyowm wa fii hada shahri ilaahay idankii allah nagu manaysto roob deg deg ah oo aan balaayo wadanin oo saxa iyo caafimaad wata ilaahay idankii oo barakada samada ilaahay hana siiyo ilaykum annaku haddaan nahay culamo diinka ahlu sunna wal jamaaca cidina cadow kuma nihin bal waxaynu nahay dadka nabadda ugu yeera cabra taariikh inta la yaqaano ahlu sunna wal jamaaca ama ahlu turuqa oo ahlu tasawufka ah ma ahan dad colaadeed waa dad nabdeed waynu og tahay soomaalidu taa markhaati bay ka tahay oo waxaan annaku isku ammaanayna ma ahan waxaa markhaati ka ah qolada ay naga soo horjeeday walaalaheena salafiyiinta ah markhaati bay ka yihiin inaynu nahay dad nabadeed 24 saac hadday idaacad tahay iyo hadday masaajid tahay iyo hadday tahay social mediaha aflagaadada culamo oo diinka ahlu sunna wal jamaaca ama ahlu tasawufka waxbay ka sheegaan bal waxay gaarsiiyaan islaamnimada way ka saaraan oo mushrikiin annagu oran mayno waa dad islaam ah oo muwaaxidiin ah laakiin aan xaqa waafaqsanayn baan leenahay waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo annaka iyo iyaga iyo intii hanuun ilaahay subxaanahu watacaala ka doonaysa waxaan leenahay islaamnimadaana wada deeqda ayadaana nagu filan waanana wada deeqdaa waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha Gaarisa iyo Northeastern iyo dhammaan waddankeena Kenyaba nabadda inaynu ilaashano waxaa kaleento oon ugu baaqayaa isjacayl wax jacayl lagu waayey colaad laguma helo caqliga bini aadamka wixii jacayl lagu waayo iyo nabad lagu waayo colaad laguma helo makhluuqana colaad laguma beero maxaa yeelay makhluuqa dhexdiisa haddii bini aadamka ugu sharaf badan haddii bini aadamku khilaaf yimaado xayawaankii dhirti environmentiga colaadaas darteed dhibaata ka soo gaarayso waxaana sabab u ah khilaafka qolada abuurtay waxaan leenahay ilaahay hana hanuuniyo insha Allah taala xafladeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inta ka soo qayb gashay waa mahadsan yihiin mid walba muraadku uu lahaa ilaahay idinkiis ilaahay ha ahaysiyo المولى ونور لنا بدا على قوبة الخضراء وفيها محمدا ولولاه ما كان الجديدان أوجدا وما أوجدا إلا لأجل محمدا من المولى ونور لنا بدا على قوبة الخضراء وفيها محمدا صلاة من المولى ونور لنا بدا على قوبة الخضراء وفيها محمدا من المولى ونور لنا بدا على قوبة الخضراء وفيها محمد على قوبة الخضراء وفيها محمدا الخضراء وفيها محمدا على قوبة الخضراء وفيها محمدا قوبة الخضراء وفيها محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه